بسم الله magacayga waa kaafiye mahdi kaafiye geenyo halkan waxaan ku soo gudbin doonaa gabayga magaciisa waxa la dhahaa qaran wax ka hadlaya inkastoo qabweyniya lahaa qaarad lagu faano inkastoo wax badan quursan jiray quruxna moodayay oo laygu qiimeyn jiray dawlad qiraweyn leh quruxdiisa waa taan qubnee qaran ku naafooday qolqolana waa taan galiya qaxistaba jooga waa taynu kala qaybsanay qoloba meel aaday qarnigeyna joogniya halkan wali qamaarayno qaribaada Soomaalidan qodobka faalayn qoraal eeba weeye markii la isqadarin waayay hooyada qaxootiga markii qiil ka deenaysay qayrkeen markaan tuugsano lumay qabkeenii qodaxdii halkay naga mudaan wali qodaynaa xilku qoonda weeye markii qurux lagu doorto ha ka dhigin waxaad qaybsataan adiga qoyskaagu ka dheerow qaraabada hadii madax lagu qaato ilaah baan qaldoomin naflu qadaf ma deynaayo dadkeenuna qabiil kama tagayo inay isqardoofaan inkastoo hal qoysta haddana qalad ma daayaan khilaafkana maqaawiir gashiya qaadibaa jiray labadii isqoontaba haday dariska qiimayso oo sheeyaha u qayshataan soo qabjabin maaha soo ilaahay baa qaadirey qoorsamay maaha qabiil maamul qoondaystay oo qaran ismoodaya gumaysiga qarsoon iyo xuduud lagu kala qaybsho wadariga qabweynadu gashay qaadan kari waaya ee damiirku qirooda ee qeexa hadafkiisa qiimeyn inta siin lahayn qaraf ku sii daara dhaqankii awooween midka wali dhaqaaleeya ee dhulkeena qiimaha lahaa qadow ku raacaya ama qaalmo dhalay maalaya bada ku qiimeeya dadkayga oo qanaacaad sariyo quruxdu waa diinta qaninimada ee baabaxshay qoloma keenaan qaramaadna loo ururiyo iyo qaanistaba joogta magaceena lagu qaato iyo qolo tabaalaysan qaramada midoobay midkii ugu qaraab doona ee qabandi loo soo qoriyo quudnin kala beertay barfasoorka quursiga ku nool qiimo badan siiya